بالله خيامة عاد ودان ولا الصومالية خيامة عاد ودان يا مقعون لهن استعمالي يا مقع يا دين ومقعون لهن يا نسبت لهن يا استعمالي يا قف كلا دول كلا دعي يا أبيو سمية يا قف وكأوت روني هاي يا دولك إسكول بسولك إسقطاجي يا العجا يا مني دولك صاغرتي يا دين إيه wax ku raadsaday yaa dadka kale nasabadooda dhulka la dhacay warhooy wuxuu ahaa ninkii ku gabiyay awoogay buu ahaa birjabka iyo intaan Umar Cigaal soo bidhbidhanaya buu ka bari soo booqbay haluhu kuugu badiyaan gabay kalena wuu mariyo wuxuu yiri inaan aabala oydo oo ehel u muuqday agoonnimadu waa waxa cidlada loogu awdalay maanta inahayba goox cali ina jaamac maxamuud cali baa awowgeed magaciisi laga iibsanaya oo la isaga dhigayaa boqortooyadina alla jabi alla idin jabi oo alla dhulka idin la dhac tuugo ilaahay ummadiisa ka gooday oo maanta inta guri yar lagu xareeyay ayaan caruurteeda xitaa la tusin miyayna taas aaba lahayn miyayna taas cidka where she come from deeqa jaamac maxamuud deeqa ruun xagay ka timi deeqa haybe xagay ka timi cirkay ka soo dhacday miyaa la soo iibsaday ma slave ba she is a slave why she sitting alone in apartment for not able allowed to see her children okay ilaahay rimayada idinka soo ridnaagaha Minneapolis jooga oo qaybta libax ka qaatay gabadha insaan loo galow kuwiin caruurina la idinka qaad oo ilaahay waxaan idin bariyay wayn inkaar idinku dhacdaa haye maxaa ku soo haray ka war inay hayba goox ina jaamac maxamuud cali ka war maxay ku dhacday in wiilkaas in xun oo baaster ah oo waa ninkii araga horteeda Francis horteeda hiyala mi front the Francis Reed ana gabadha corner ka waxay ka xanaaqeen ba adduunka ilaahay oo mar daba Francis ma warabta inay gaadho noqoto because way ka xanaaqday oo dagaal soo ninkaas igu qeylinayay bay ka xanaaqday aniga ninka xun ee kibray oo baasterka la kibriyay oo aniga walaalkay maalin walba soo fuulo kufsada ee ciisa sheegtay eeyga daayirka maxaa anaga waxa soo war anaga dadkaygi baa raadsanayna dhulbahanto waa been baa noo sheegteen haddii dhulbahantanimo iyo daaroodnimo jirto oo ay jirto Soomaalinimo hana laga qabto dhulbahantana laga qabto dhulbahanta waa cadowgayaga wuxuu sameeyay madaxnimadayadii xornimadayadii awooga u soo dagaalamay uu intuu isku dhisay oo qafiyo of the people isku dhiseen ayay naga wataan annagana waxay inana wada xabaalaan abahi bay ku dileen Kenya wallahi diinta loogu muslimi ah cusbitaal oo si loo ku galay ku dileen walaalkina waxa isku dayaan Mareykanka dawladda Mareykanka abu jooga oo xuquuqdiisu ilaahay ha u soo saareen laakiin 100 jeer bay isku dayeen isaga naftiisa dilaan ka siiyaan cusbitaalada geystaan walaalkay intay Nairobi ka soo kaxeeyaan oo shirqooleen booliis ku direen Kenya ayay ka tuureen magaalada la yiraahdo Addisaba oo ku xareen oo ku haayeen oo ku qarin hayeen lacag ku bixin hayeen oo ku haayeen oo la soo saaro la soo ogaado inuu long time inta loo maleynay aniga ay wiilkayga maalin walba halkayna daba socdaan waa ka shaqeysan kar weyni waa ka joog kar weyni guryaha dhan bay nagu diraan hadda apartmentiga right now aan jifo 1 month extra aan weydiisanay waa nagu direen oo waxay naga rareen kiriir aan baarmin uu ku ramahayno kiriirkayga hiisay ba naga cayaareen meel walba nagu cayaareen waana daba socdaan bariiskan maanta cunug qagti meesha ku kaadano wayna daba socdaan waayo shaqa annaga constitutionka Soomaaliya annaga waa we are the constitution of Somalia my grandfather is the constitution of Somalia this is the problem mana arki karaan mid Soomaali jooga mid Mareykan jooga mid walba jooga nama arki karaan maxay sameeyaan adduunyadu dadka constitutionka ah ee priority-ga wadankooda kule way dhaqaalayaan guryo u dhisaan way caawiyaan way protect gareeyaan Soomaalidu maxay sameeysaa Somali doesn't do that Somali people kill and kill and abuse they are their constitution or they are veterans children or the veterans they kill and they torture and they rape and they take the name from them and they use that name themselves
This is what they are doing to us right now here in the US. Forget about Somalia. And what they did to us to Somalia, they chase us, they move us here. Waxay naga dhigeen every time we never rest. Saan u dhalanay waa soconaynay, waa ordaynay, waa cararaynay, waa qaxaynay. Maalintan saa u garaadsada hooyada ka caraysa diyaarado budhir hoos galaysa ku garaadsada. We have no rest here. We never have that freedom. We never got rest. We never got freedom from Somalis and Africans. African kuna way iyaguna waa same leader waxba isuma ogolo way nagu eeganayaan. Africa siday u dhantahay African Union kan dacweynayna forget Somalia, because if African Union have a right and they are truly honest, they need to do something about Somalia. All the qalalaasaha iyo dhibaatada Africa hoon Africa to Somalia ka wada. Somalia kowka wax walba oo dhibaato dhaca Somalia ka soo bilaabmaan. Anything waxa Kenya ka dhacaya, waxa Ethiopia ka dhacaya, waxa Uganda ka dhacaya, Somalia ka bilaabmaan. The Somalia is a foreigner country. It's inside and Horn Africa. Somalia is a foreigner country inside and Horn Africa. A foreigner country haloo dhiibo madaxweyne adduunyada kale haloo dhiibo Soomaaliya, haloo dhiibo madaxweyne from Jarmal oo USA. Ninkaan hadda iswaanti la dhahaya haloo dhiibo madaxweynaha looga dhigo Soomaaliya 4 years halooga dhigo hala arka wax ka dhaca. Wallahi wa billahi wa tallahi haloo dhiibo, because Somalia is a foreigner country. It's not Africa. It's a foreigner country in Africa way. But let me explain to you, Somalia, all the problem is Somalia. What the ka dhacaya Bahardar is a Somalia. Waxa ka dhacaya Kenya is a Somalia. Waxa ka dhacaya Uganda is a Somalia. Waxa ka dhacaya Sudan is a Somalia. Waxa ka dhacaya Egypt is a Somalia. Because Somalia is supposed to be like the best in the international, the best resource and the best protected land in the world. Meel walba oo bad adduunka ugu weyn haysato oo dhulka adduunka ugu weyn haysato oo micnaha resource adduunka ugu badan haysato waay. Adduun walbana wuxuu rabaa inuu wax, every country want to get some. Dadkii iska lahaana waxay noqdeen tuugo annaga iibsanayso dibadaha nagu iibsanaysa. Annaga wadankayga saasaa loo boobayaa, awooyaasheen wadankeena u dhinteen saasaa loo boobayaa. annagana waxba loogama ogola, gurina loogama ogola, shaqana loogama ogola. Xitaa annaga Mareykanka iyo Yurub iyo meeshaan joogno waa nagu cunayaan, nagu iibsanay. Annaga shaqa naga dhigteen waayo dhulkooda shaqa kama heli karaan, waxba kama heli karaan. Dadka inay dadka cunaan mooyaane dhulkooda waxba kama heli karaan. Intay Soomaaliya aadaan kama fish karaysan karaan waayo maba loo ogolaba. Soomaaliya intay aadaan beach guryo iyo wala maxaa lagu raaxaysto dhul laga raaxaysto kama samaysan karaan, lacag ma haystaan. Waayo inay dadka iyagu isbaraan dibadaha inay waxay rabaan, they trying to know people outside their own homeland to be, you know, inay soo caan baxaan, actors noqdaan. Actors anaga inay nagu noqdaan bay rabaan. They want to be actors on us. When they actors on us, chase us everywhere here, then that maybe the people will know them. And sida kaliya oo lacag u sameyn karaan in anagana dhibaateeyaan. Waayo waxay ogyihiin anaga awooyaashood, they know that our grandfather have more name than their grandfathers. Our grandfathers well known than their grandfathers. When is there more guys to hard time and give us a difficult time, that maybe give them a resource. So this is a thief. This is how they're talking about Gray, and this has how they use us. And I'm telling you, Somalia, when you have see Somalia being divided in 10 parts, and Somalia not being a benefits her own people, Somalia benefits some other people. Same thing here in United States. Somali people claiming being the leaders of Somali people, waxay ku dacwoonayaan oo ku hanweyn in Somalia, but they don't support their sick ones, they don't support their poor ones, they don't support the one that are being unjustly jailed, and they don't support even the young woman who has 7 children were taken away from her and not allow her to see and sit in apartment in 7 years now, and basically being held against her will, because if she got out the door, she will meet with harassers
who harassing her because they the one is the man that took her children from her, one is from Absame, Ogaden, Absame, and one from Majarten. So his tribes are more people, his tribes there in Minneapolis. If she got out the door, they are threat her to say that if we see you outside, you will not survive. This is the signs that she's feeling. She's getting it. She's scared. She can't even get out the door. And anyway, these people, the enemy for Allah subhanahu wa ta'ala, the enemy for the people, the enemy for Allah subhanahu wa ta'ala, because they don't care those who need support, who cannot talk by themselves. If you talk with the people like that, like my sister, they will hate you, they will not like you, they will not want to hear your face. Kaaga marba inaa maqlaan kuma jeclaanayaan, way ka xanaaqayaan, waxay u maleynayaan qabiilkooda wax ka sheegaysaa. qabiil baa ka hadlaysaaye, qabiil baa ka hadlaysaa, nasabadii aabihin wasi qabiil baa ka hadlaysaane, dad baa dhibaato ku haysaan, dad baa xornimadoodii dhibaato ku haysaan iyo caruurtoodii aad diideen inay arkaan, dad baa daba socotaan habeen iyo maalin fuulaysaan. haye maxay ku hadlaysaa adiga? haye dad baad cusbitaal dhigteen, dad baad dhigteen, dad baad prison jail life aa geliseen intaad ka xanaajiseen. But you know why? I don't like that. I don't like when I see people claiming something that are not Aaron and their grandfather did not Aaron. I am the gray, I'm driving the gray. No, you liar. I'm driving both grays. You a liar. You a thief. You are stealing people. You are liar. You are thief, okay?